السلام عليكم كسو دواده كيستا تي في وفيديو kale oo aan kaga hadlayno arrinka lacagtii 1200 ahayd oo la sugayay iyo waqtiga ay u soo dhici doonto dadka degan dalka Mareykanka ayaa isweydiinaya goorta uu qof walbo helayo jeegi ay dawladda ballan qaaday oo ahaa coronavirus relief package-ka sida uu qoray wargeyska CNBC ayaa waraysi lala yeeshay IRS-ta ama hay'adda canshuur qaadista federaalka ah waxa lagu sheegay in dadka xareeyay canshuurta 2018 iyo 2019 oo iyagu ay IRS-ta hayso bangi information-kooda aysan u baahnayn inay qaadaan wax tallaabo ah qoondada kaga soo aaday lacagta ay u soo dhici doonto accountigooda ugu jira systemka IRS-ta waxay sheegtay qofkii aan xareynin tax return 2018 inay si degdeg ah ugu xareeyaan si ay lacagta u helaan haddii aadan xareynin adiga sacaga dibi dhalay waxa isu ka raacaya shaqo la'aan iyo lacagtan oo aad ka qaddo halka aad warbixintan kala socotaan waa channelka Kista TV YouTube-kiisa fadlan subscribe saar sidoo kale caruurta ayaa la sheegay inay xaq u leeyihiin $500 laakiin qofkii canshuurta ku buuxsan jiray dad waayeel ah ama qaraabo ay hayaan ayaan u qalmin lacagtaas $500 jeegan ayaa sida ay xaqiijisay IRS-ta wuxuu soo dhici doonaa ilaa 3 usbuuc gudahooda dawladda ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay ka shaqeynayso website lagu sheegay inuu fududeyn doono dadka aysan IRS-ta haysanin banki information-kooda ama account number-kooda laakiin weli diyaar ma aha Treasury Department-iga ayaa waxay sheegeen in la filayo usbuucyada fooda inagu soo hayo inuu dhamaystirmo website-ka waayeelada qaata SSI-da ama lacagta duqnimada ah ayaa iyagana lagu booriyay inay xareeyaan waxa loo yaqaano simple tax return ama tax return yar oo lacag aan soo celinayn si ay u helaan lacagtaas wixii su'aalo ah fadlan comment section-ka igu soo qor like the video share with qof kasta oo aad isleedahay uu ka faa'iideysan doonaa waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh